kale shahiiday waa jiraan dhaawacna waa jiraa aan inta badan fudayd u badan qof kasta xaq u dirana sida nabaddu ama waxaan raadinayno oo nabad iyo nolol ah waxay ka dambeeyaan dhiigga iyo dhimashada gadaashada yaala wataas xaq meesha u aad inta kadib waxaan rabaa saddex qodob inaad fariintan iga qaadaan adiga gaarsiisaan dadka aan wado shacabka reer Puntland dadkii isku duubnaa shalay isku duubnaan jiray markastoo cadow soo waajaho hadday shacab noqoto hadday ciidan noqoto garabka isku ahaa waxaan idin leeyahay hawsha aad wadaan waa idinku bogaadinayaa dhiiranaanta sidaad ciidanku garab taagantihiin hal midna waa idinkaga digayaa oo waa idinku boorinayaa tacsida badan iyo haddii aad kornaa iska daysaan tacsi uma baahna wiilka maanta ku dhintay calmiskaar sababtoo ah waa qof nasiib badan oo naga shahiiday oo jannadii ilaahay iyo haddii aad kornaa khayrkii alle iyo nabiga micii noqday kaasi tacsi uma baahna waxaa loo baahan yahay kaliya inayna meelaha taa ka tacsiyeyne aad ficil wax kasta oo aad qabanaysaa bedeshaan inaad garab istaagtaan inaad cadowga ilgooniya ku fiirsaan inaad feejignataan inaan inta dagaalku ciidanku ku jiro inaan magaalooyinka amnigoodana aad sugtaan shacabku waliba ay sugaan oo ay meel kasta ay ka shakiyaan ay wacaan ciidamada oo garab siiyaan oo ayagu soo qabtaan sidii aad qaban jireen caadadan idii ahayd shacabka taasaan leeyahay tacsi looma baahna ee waxaa loo baahan yahay wax qabad waxaa loo baahan yahay wiil kasta iyo gabar kasta inaad dhiigga shubtaan inaad feejignaataan inaad ciidanka garab siisaan inaad wax allaala waxaad ku sabadgarayn ka dhaan ciidankiina xaq u dirarka ku sabadgaraysaan waxba soo korin mayso inaad wiil mujaahida oo walaalkaaya oo dhintay aad Facebook soo dhigtay ama u taasiis taasi intaas ka leeyahay waxaan rabaa ganacsatada reer Puntland inaad fariin iga gaarsiisaan ganacsade waxa maanta la dirirayo ee gabagabada ah ee baaba'ay ee cagta la mariyay waa kuwii shalay ka qaadayay baada waa kuwii waxaad awoodin iyo waxaad awoodinba fariinta inta kugu soo dira message-ka wiilka yarka ah ee Suuriyaanka ah intii loo soo diro loo soo turjumo oo message kugu soo dirayay oo ku dhax inta Soomaaliya baa u baahnaa halka ku ee adoo huleynaya oo dhididaya oo baqaya aad wushlaysa akoonka kii weeye midka wiilashaan leynayaan oo wiilashaadu dilayaan oo qabanayaan oo godadka ugu dhacay wiilkaaga maanta leynaya kuwii adigu ku baadayay wuxuu kaaga baahan yahay garab istaag haddaadan wax weyn batarayn wixii shalay baadi laga qaadi jiray ee aad ku qanacsanayd ee aad la aamusnayd ee aad cinaanada la huwan jirtay markaad bixinaysay intii waxaad samaysaa qayb ka mid ah saddex meelood meel ka mid ah daartay bix oo dawladda la garab istaag oo ku bixi akoomada dawladda shalay baa akoomada daashta ku shubaysay dhiiro habaqi ilaahay baad leedahay naftu maalin bay goodaa wixii aad ka baqaysay shalay waxa aad ka liita ee ducufada ah ee godadka meenada ka soo tuuraya oo godadka loogu dhacay bay ahaayeen ma ahayn wax awood badan lacagtii shalay laga qaaday ilaahay kaama qaadin ayad quraana kaama qaad lagu soo dejin culumma kaama qaadin sadaqa ulamadan iyo baqdin baad bixis ayadoo ka sharaf badan ku bixi wiilkaaga dhaawacmaya ee dhimanaya ku bixi oo dawladda oo maanta garab istaag dawladdaada iyo shacabkaaga ganacsatada fariinta ay gaarsiin oo hadii yar oo damiir oo dadnimo ah oo Puntlandnimo ah oo hadii la ku roon yahay nolol ay ku jirto intaas samee maanta intaas wax weyn oo ah dawladdu ku baadi mayso aday dawlad ku tahay aday ku ilaalisaa garab istaag hadii aad garab istaagin waxa meesha imaan doona kuwii ku baadiyo kale baa imaan doona marka garab istaag si aan ugu baadin oo maalin kasta wiil yar oo Suuriyan ama mid yar oo Marookiyan ama mid yar oo Sambiyaan inta ku yimaado uusan lacag baad ah awoodin u ka qaadin garab istaag dawladda dal kasta oo horumaray wuxuu ku horumaraa dhaqaalaha shacabkiisa dhaqaalaha ganacsatadiisa muwaadiniinta ee garab istaag intaas fariintaas iga gaarsiiya walaalaha ganacsatada reer Puntland qurbajoogta reer Puntland ayaga fariin iga gaarsiiya maanta xaalku meesha maraya wada jeedaan waxba idinka ma qarsoona moor aad shirarsi qabataan moor aad waqti sii bixisaan moor waqti idinka sii dhumo macna weyn soo siyaadin maayo waxaad samaysaan dhaqaalihiina hura dadka idin dhimanaya deegaankiinni dadkiinni way maanta waxa la idinku haysto
wiilasha idin dhimanaya garab istaaga dhaqaalaha hore qurba joogto waxaan ku amaanaya ana idinka jaayis ku noqonay ama ana beed ka sheegay Puntland walaas kasto ku yimaada kuwa u baxsato oo qurba joogto kuwa dhaqaalada ku bixin jiray qurba joogto kuwa garab istaaga markasta qurba joogto laakiin hadacsanaan baa lidinka dareemaya hadacsanaan ayaa sanadkan idinka muuqata min fadli shirarka badan iska daayisay hore madaxweynuhu ku sheegay degdeg uga jawaaba dawladda danahay reer Puntland waa dhig baxayna dhaqaalahan waa u dhig baxayna ciidan ahaan waa u dhig baxayna dhaqaalahan u garab istaaga dawladii waa dareemi karnaa canshuurta la qaado iyo capacity-ga dawladnimo iyo awoodeeda waa dareemi karnaa waa dagaal waxaan ku jirnaa aan cid naga caawinaysa jirin cid naga kabaysa jirin annaga iyo ajnabiga aan ishaynaa aan soo dhanna waxaan la dagaalamaynaa ilaa 30 dawladood oo dhaqaale ka soo qaatay soo burburiyay dhaqaale haysta naga dhaqaale badan baan la dagaalamaynaa laakiin annagu waa ka karti badan waxaan leeyahay dadjiya oo gacan dhaqsado oo maanta waxba ha dhiganina maanta waa maalin aad u adag xilli aad u adag waqti adag dagaal adag aan ku jirno waxba ha reebanina maanta dhaqsada oo dadjiya intaas baaqaygu waxaan ku soo kordhinayaa oo kale ganacsatada waa ka hadlay shacabkana waa la hadlay qurba joogtana waa la hadlay shacabka reer Puntland markaa waxaan leeyahay isku tiirsanaada tacsida badan ee joojiye waa aragtay kuwa maala yacniya oo qabyaalad dilootay oo dad wada dhashay oo walaalaha kala dilay kuwaas waxaan leeyahay ka waantoob kuwa dadka wada dhashay ee walaalaha labada wiil ee difaaca ku wada jiray ciidanka ee isku malakamoodka ee isku xabada jabaatiga kala goosta ninka qabiilka u kala yeelayo ka waantooban ku leh lama horaan waa cawska jiilaal halkaani waa meeshaad ku dhalatay tani waa meeshaad u dhalatay kani waa dhulka ku horan way haddaad maanta fogtahay ama qurba ku nooshahay markasta waxaadan hurayn kanaadan hurayn haddaadan dalkaaga iyo dadkaada iyo diintaada wax tarayn oo aadan u dhimanayn fadlan afkaaga ha ka nabadgalaan intaasina waa codsi aan u dirayo kuwa maanlaawayaasha ah ee qabyaaladda ciidanka la dhex fadhiya ee qurbaha ka soo qaylinaya waxaan leeyahay walaalka baan nahay walaalaha baan nahay haddaadan waxba tarayn waxyeelada kaliya naga dah waa la sii noolaanaya waa la kaftami doonaa adduunku maanta laami mayo adiguna waa jiri doontaa maalin waxa hor dhici doonta aadna hor timaadid adoo naga qajilaya aragayga adoo naga qajilaya inaad sida aan noo fiirisi xumaanta aad noo geysata awgeed marka maanta asay soo dhicin walaal waxba hana tarin waxyeelada kaliya naga dah aad baan idin salaamayaa shacabka reer Puntland guul baan leeyahay shacabka Soomaaliyeedna guul baan leeyahay insha Allah kuwa Ilaahay guusha soo siiyay ama guusha Ilaahay markasta garabkooda ka dhigo waa